Dhawaantii waa idin salaamay dhegaystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah xalqadaheenii dhiirigelimaha iyo waanida isugu jiray. Waa maanta iyo mowduuc saameyntiisa leh kuna saabsan xaqa waalidku u leeyahay. Inaan mowduuca kan barnaamijka sameeyo ama aan ka diyaariyo barnaamijka kan waxa igu dhiirigeliyay dhegeysiga iyo markaasi indhaynta sheeko aabba Soomaaliyeed ku dhacday. Sheekadan markaan idin soo gudbiyay kadibna waxaan idin hooga tusaaleyn doonaa ahmiyadda waalidku leeyahay. Sheekadu sidee bay u laba dhacaysaa? Abo wayeel ah ayaa telefoonkiisa gacanta u geeyay mid ka mid ah dukaamada lagu hagaajiyo ama sameeyo telefoonada. Kadibna farsamayaqaankii waxa uu ku yiri odaygii wayeelka ahaa, "Aabba telefoonkaagu waxba kama khaldana ama ma ciladaysna." Kadibna odaygii wayeelka ahaa ayaa indhihiisa intay ilmo ka daadatay ayaa waxa uu farsamayaqaankii ku yiri, "Haddaba maxaa kalifay in caruurtaydu aysan isoo xiriirin oo aanay isoo wicin?" Deetana odaygii isagoo xatow iyo xataab halkii la jooga oo bartii ku ilmeynaya ayaa markii dambe waxaa simirsiiyey yarkii farsamayaqaanka ahaa. Deetana odaygu markaa wuxuu aaday gurigiisa. Sheekada tan marka maxaynu durbadiiba sawran karnaa in odayga wayeelkii marxaladihii wayeelnimada ku jira uu tabanayo arrimo badan oo ay la mid tahay inuu heer gaaro uu ka shakiyo telefoonkiisu inuu ciladsan yahay oo is yiraahdo waalidka uu is yiraahdo ubadkaad ku soo dhimatay armaanaysa ahayn in telefoonku ka ciladsan yahay oo markaa farsamayaqaan u tago deetana hubin dheer kadib la ogaado telefoonkiisu inuu okay yahay laakiin ay ciladu tahay dhanka ubadka uu wax ka sugayay ama uu dhowrayay. Muhiim sheekada tan maxaynu ka qaadan karnaa? Sheekada tan waxaynu ka qaadan karnaa in waalidka lagu caasi garoobo inay tahay nafsi iyo in aad u dekanoobi doontid kuguna imaan doonto marka aad ayagoo kale aad noqotid oo waalidkaagu waxaad ka shaqaysatid ayayna adigana ubadkaagu kaa shaqaysan doonaan.